السلام عليكم. waqtiyadii hore marka uu qofku cilmiga aqoon doonayay inuu soo korsado waxay ku qaadan jirtay in uu tago meelaha cilmiga aqoonta siyaalaan haba noqoto meelo aad u fog balse maanta adduunku sidoo hore ma aha waxaad jeceshahay inaad baratid waxaad helaysaa bartaada jooga waxaaba laga yaabaa inaad heshid buugaag aad ugu qaaliyo maktabadaha oo ay qoreen jaamacado waaweyn balse ay ku xidhan tahay inta adigu aad diyaar tahay ee rabitaankaagu sareeyo muuqaalkanina waa mid dabada ku sahaya mowduucii hore ee aynu ka hadalnay fadlan haddaad imika nagu cusub tahay waxaad ku laaban kartaa muuqaalkii ka horreeyay soo dhawaada oo kunu macana إن شاء الله waxaynu xoog saari doonaa inaanu helno dad aynu fahmi karno oo afkeena hooyo ee Soomaaliga si wacan oo aynu fahmi karno inagu sharaxaya Duran Ali waa wiil dhalinyaro ah oo si fiican u bartay cilmiga web development-ga isagoo si wacan ku kala baray dhammaan qaybaha kala duwan ee web development-ga sida HTML, CSS, JavaScript iyo Python aniga shakhsiyan runtii waxaan si fiican uga bartay cilmiga HTML ee basic oo ah web development-ga kanaalkiisa waxaan idin soo dhigay qaybta description-ka ama comment-ga oo horeeya ee muuqaalkan waxa soo kala jira kanaalo far badan oo Soomaali ah oo soo gudbiya cilmiga video editing-ka balse Garaas waxa uu kaga duwan yahay kuwaas ayaa ah in channelkiisu ku kaysay dhammaan casharada software-da loo isticmaalo video editing-ka ee ay soo saarto shirkadda Adobe sida Adobe After Effects, Adobe Photoshop iyo Adobe Premiere Pro iyo xataa kuwa kale sida Filmora, Camtasia Studio iyo software-ka codka lagu hagaajiyo Audacity isagana sidoo kale waxaad ka helaysaa comment-ga ugu horeeya ee muuqaalka SaaS software sidoo kale waxa uu ka caawinayaa inaad si wacan oo ilaa heer advanced ah ku baro cilmiga Wixbook wuxuuna ka caawin doonaa meelaha kugu adkaada ee aad dhaaf weydo insha Allah waxay igu adkaatay inaan helo shakhsi Soomaali ah oo cashar ka bixinay xirfadda digital marketing maadaama ay tahay cilmi imika lagu baraarugo muhiimadiisa waxayse Soomaalidu tiraahdaa hadba sidii loo jabayo loo dhitiyay waxaan ku sheegay wiilka dhalinyarta ah ee dhalashaan Hindiga in uu luqadda Ingiriiska ku diyaariyo ku dhawaad 18 cashar oo ku saabsan xirfadda digital marketing iyo dhammaanba qaybaha ka kooban tahay sida social media marketing, contact marketing iyo email marketing xataa sidoo kale waxa uu ku tilmaamayaa meelaha aad hadhow ka shaqo abuuri lahayd sida website-ka freelance haddaba waxaad jeceshahay inaad baratid waqti badan si waayo wax walba waxaad xariif ku noqotaa inta waqtiga aad siisay sidoo kale casharka aad shalay baratay ha ka tagin ee ku celceli oo muraajacee kadibna u gudub casharka maanta ugu dambeyn waxaan kula talinayaa haddaad doonayso inaad si wanaagsan wax u barato oo aad jeceshahay inaad nolosha heer ka gaadho ilaahay qaacida ayuu nagu siiyay quraanka qaacidadaas oo ah bismillaahir rahmaanir rahiim wattaqullah wa yu'allikumullah haddaad rabtid inaad wax barato qaacidadaas uun qaado kaliya ilaahay ka baq mid kale waa muhiim in waqtiga ku nidaamsanaado iskana ilaali isdhaxyaacidda hana bilaabin koorso cusub adigoo koorsadii hore aad dhameen waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh